الله كبرك جزاك الله خيرا waan ku faraxsannahay sheekay culimada ugu yeerto ama bulshada u taqaana sheeka jacaylka inuu maanta qadka inoogu jiro ama aan waraysi la yeelanayno farxad gooniya iyo waxay noo tahay karaamo gooniya aad baan kugu mahad celinaynaa ustaadi markii aan kasoo tago su-aasha labaad aan u socdo waxay tahay ustaadi markii waxbarashada lagu jiro waxaa jirta dadka markay waxbarashada ku jiraan waxaa dhiba qofka ama kitaab hebel ama fiqi hebel wax unbaa meel ka dhiba marka maxaa ku dhibi jiray ama aad jeclaa jirtay ama aad ku dhibi jiray noloshaada dhanka kale markaan dala ka eegto isla su-aal labaada la socoto oo kitaabkee jeceshahay markasta inuu gacantaada ku jiro ama aqriskiisa aada badiso soo dhawow horta intaan weynaaday alxamdulilah waxba badan ma dhibsan jirin xagga kutubta iyo mashaa'ikhdeedana saaxiibaan wada ahayn laakiin waagii aan yaraa ayaan doonayaa inaan su-aashan aada weydiisay inaan qiso dhacday aan kala wadaago anugu waxaan necbaa arday aada u dadaal badan baan ahaan jiray oo fahmo badan marka garaaca ayaan necbaa marka macalinkaygii macalin weli raximahu llahu tabaaraka wa tacaala maalin baa waxaan u arkayey runtii ul aanan mudanin marka in la igu dhufto inuu igu dhuftay anigoo laga yaabaa hal xaraf inaan meel ha ahayd kaaf ka dhigay bulaca soomaalidu qeyb kamid ay dhahdo baanu soo qabanay bulaca ama mulaca waxaan ku tilmaamaynaa ama aanu ku qiyaasaynaa ama maskaxdanadu ay cabiraysaa inuu yahay macalinkii waanu dilay kadibna maradaydii baan qeyb ka gooyey kadibna waan kafan baan oga dhignay waanu yaryarnahay markaasi kadibna janaazan ku tukanay waxaan anagu ugu magacownay kadibna waan soo duugnay waxaanu nidhi marka macalinkii maadaama uuna dhibay maanta macalinka waan ka takhalusnay ilaahay qudradii galabkii markaan sida aan soo samaynay habeenkii waa la iska seexday hadee ardada baadiyaha habeenkii 3 habeennimo baa lasoo kacaa oo dab la shidaa oo ardadu ay soo kacaan oo macalinku soo kacaan oo qur-aanka la diyaariyaa kalcaada sidii baa dhacday salaadii subax markaan anigu hadda saacad maanan haysanin laakiin qiyaaska markaan isleehay salaadii subax 30 daqiiqo iyo wax ka yar baa ka hadhay ayuu macalinkii anagoo dee meeshii gurigii iyo degaankii meeshii ka koreysay oo dabku noo shidan yahay oo qur-aankii markaa wada qoranay ayuu macalinkii dhinaca dhulka dhigay kadibna macalinkii ma kicin salaadii subax baa la gaadhay macalinkii ma toosin waxaa la gaadhay waqtigii ardadu ay qureecda doonanaysay macalinkii ma toosin guryihii markaanu ku wada noqonay oo de macalinkii awel la yidhi oo qureec iyo wax lamida laga wada hadlay ayaa la weli macalinkii qoraxdiibuu jiifaa kadibna waa lasoo kala orday oo aabbahay baa kamid ahaa allaha u naxariistay dadkii soo orday guriga anagaa la dhigay macalin weli taqriiban wax meyd u eg buu ahaa ilaa makhribkii kale laga gaadho si kasta ayaa wixii dhakhtar la heli karay iyo wixii mudaawaad la heli karay oo dhan oo reer baadiyu isticmaalayeen markii laga quustay ayaan aabbahay u imaaday waxaan ku idhi aabba runta ma kuu sheegahaa macalinka anigaa habaaray usha igu taalana waad ujeedaa kadibna aabbahay dee nin sheekha buu ahaa markiiba ima canaananine wuxuu yidhi intuu soo qaaday taxaliil ama cashir ayuu yidhi aabba ku tufo u ducee ilaahay inuu caafimaadiyo anaa ballan kuu qaadaya inaan ul damba lagugu dhufanin sidii baan maxaa la yidhaahdaa aan ugu duceeyey ilaahay qudradii markiiba biyihii markii saa loogu saydhayba indhuhu kala qaaday oo wuu soo fadhiistay horta qisadaasi waxay ahayd qiso iga soo martay run ahaantii waxbarashada iga soo martay bay ahayd amaa qeybta kale sidii baana ilaahay iiga badbaadiyey sheekha ushiisii iyo macalinka oo mar dambeba ul layguma dhufanin amaa kitaabka aan ugu jeclahay runtii kitaabka magaciisa waxaa la yidhahdaa abu jamra xadiidkaasi kitaabka waxaa iska lahaa sheekh la yidhaha cabdullahi ibn abi jamra alasdi ayaa iska lahaa waa kitaab 294 xadiid ah oo laga soo xulay saxiixeynka kitaabka waxaan ku jeclaaday oon aada ugu jeclahay subxaan allah waa kitaabkii aan ku indha furay oo xadiid ah xadiid nabiga sala allah alay slam carabkiisa soo maray kitaabkii ugu horreeyey oo aan akhristay buu ahaa waxaana ku akhristay magaalada xamar xaafadda siigaale sheekha ii akhrina sheekh ibraahim suuley kolba dadka dhegeysanhaya ee da-dayda ah aad bay u garanayaan dalabaduna inta badan way maqleen raximahullah waqti dhexdeera ayuu hargeysa ku geeriyooday allah u naxariiso subxaanahu wa tacaala
kitaabkaasi waa kitaabkii ugu horeeyey oon duubay 1995 aan maxaa la yidhahdaa ikeen aan ka duubay oo duuban ayuu noqday. marka kitaabkii ugu horeeyey ee aan jeclahay mar walba inaan daraaseeyo aqriyo sharxiisa kama hadlayo, kitaabka matnigiisa weeye waxa aan doonayo inaan aad iyo aad u cabiro. nacam.